السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaar ka mid ah dadka waxay yiraahdaan in qofka kibirka badan uu la mid yahay nin buur saaran isagu dadka wuxuu arkaa inay aad u yar yihiin dadkuna waxay isagu arkaan inuu aad u yar yahay. kibirka waxa keena waxyaabo kala duwan baa keena qofka bini'aadamka inuu aamino inuu dadka ka fiican yahay taasoo keenaysa laba arrin ay keenayso kow inuu dadka ugu fiican yahay wuxuu isagu kasbaday waxa carabtu yiraahdaan cisaami weeyaan ama in uu aaminsan inuu dadka ka fiican yahay asbaabo kale una kasban ama reer ha noqdaan ama waxyaabo kale ha noqdaan waa waxa carabtuna u yaqaanaan cidaami weeyaan marka waxa jira cisaami iyo cidaami baa jira. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabihii uu dadka ka waanin jiray ama uu ka digi jiray waxa kamid ah kibirka kamid ah Allahumma inni a'udhu bika min al-kibr booran jiray waxaan ilaahay ka magan galay kibirka iyo isla weynida waxaan weeyaan markuu naftiisa tilmaami jiray profilkiisa bixin jiray wuxuu oran jiray inma ana ibn imra'atin kanat ta'kulu al-qadida bi Makkah waxaan ahay waxa weeyaan nin ay dhashay hooyo waxa weeyaan ku cuni jirtay ama iibin jirtay riwaayadaas aan huban waxa weeyaan midhaha Makkah ku iibin jirtay ama ku cuni jirtay waxa weeyaan ereygan aniga iyo isla weynaanshuhu marxay keentaa marmar dhibaato weyn bay keentaa. ninkii la oran jiray al-Mutanabbi ee gabyaaga Carbeed ayaa waxa dhacday in uu gabay tiriyo naftiisa oo amaanayo nin aad isku weyn buu ahaa markaas wuxuu tiriyay al-khaylu wal-laylu wal-baydaa'u ta'rifuni wal-rumhu wal-qirtas wal-qalamu ana alladhi nadara al-a'ma ila shi'ri wa asma'tu kalimati man bihi samam wuxuu yiri anigu waxaan ahay kan ninka indhoolka uu arkay gabayadayda kan ninka dhagoolkuna uu maqlay dhawaqa ereyadayda fardaha iyo habeenka iyo lama degaanka iyo seeftu iyo waranku iyo qalinku kulligood anigu waxaan ahay way wada yaqaanaan waxay isku dhaceen markaa nin la yiraahdo Kaafuur al-Akhshidi oo ahaa nin madow abd dadkan mamaaligta la yiraahdo ama maxaa la yiraahdo adoomada ahaa oo markaa Masar xukumi jiray markaasa waxa weeyaan gabay buu tiriyo wuxuu la tashtari al-abd illa wal-'asa ma'ahu inna al-'abid al-anjas al-manakid marka adoonka iibsanaysid u shal iibso ayuu gabay u tiriyay ninkii boqorka ahaa ee barigaas ka jiray markaas ninkii boqorka aad buu xanaaqay ama Mutanabbi uu cararay isagoo marka meel lama degaan socdo ninkii khaadimkiisa la socda ayaa qolaa ku soo baxday oo u maleeyay cul yihiin sida daraadeed wuxuu go'aansaday inuu cararo markuu rabay inuu cararo ninkii khaadimkiisa baa wuxuu ku yiri miyaanad ahayn ninkii yiri الخيل والليل والبيداء تعرفني والرمح والقرطاس والقلم فردها يلما دغانك يا هبينك يا ورنك يا سيفتا يا قلنك بنك يا قارنين بانه markaas uu qataltani qatalaka Allah wadi dishay ilaahay ha ku dilay dadkii buu la dagaalamayo sidii uu ku dhintay marka ereyga aniga iyo isla weynaanshihi waxay keentay aakhiritaanka inuu qofkaas halaag iyo wada xun ku dhinto sida daraadeed qofka bini aadamka waxa fiican inuu naftiisa qirto waxay tahay rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi ilaahay hawn xariisto qof miisaanku leeyahay gartay wuxuu yahay waxaad noqotaa sida xidigta oo kale waxa la arkaa iyadoo meelaha sare joogta ayaa waxa lagu arkaa biyaha dusheeda sawirkeeda lagu arkaa ha noqonin sida qiiq isagoo waxba ahayn erka u baxaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.